agaasimaha dawladaha hoose ee wasaaradda arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Somaliland ayaa maanta kulan hawleed u furay xubnaha golaha deegaanka ee degmada Boorama. kulan hawleedkaasi oo lagaga hadlayay hoggaanka ayaa waxaa lagu falanqeeyay habka ugu wanaagsan ee maamul daadejinta iyo sidii golaha deegaanku ay nidaam fiican ugu shaqayn lahaayeen. waxaana wasaaradda arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Somaliland ay doonaysaa in golayaasha deegaanku ay ku shaqeeyaan nidaam waafaqsan xeerarka wasaaradda arrimaha gudaha. waxaana kulankaasi ka hadlay maayirka degmada Boorama Salebaan Xasan Xadee waxaana uu tilmaamay oo loogu talagalay in roolal badan ay isticmaalaan xildhibaanadu iyo inta ay mas'uuliyadu saaran tahay oo laga rabo inuu intaasoo buug oo la sheegay oo mid walba ujeedadeedii iyo mas'uuliyadeedii xambaarsan in lagu abaalgarayo mas'uuliyadda saaran. sidoo kale waxa isaguna halkaas ka hadlay sarkaal ka socday hay'adda UN Habitat oo had iyo jeer wada shaqayn ay leeyihiin dawladaha hoose ee deegaanada kala duwan ee Somaliland Axmed Aadan Yuusuf waxaana uu ka waramay ujeedada kulankani iyo waxyaabaha lagaga hadlayo. marka imkan wuxuu kooban yahay oo kaliya qaybta hogaaminta oo tobanka fiidood waxaa laga soo fuliyay degmooyinka degmada Burca laga soo fuliyay imkana Boorama laga fuliyay horena waa loo fuliyay. mashruucan wuxuu qayb ka yahay mashruuca loo yaqaan GPLG-ga mashruuca wadaaga dawladda iskaashadeen iyo hay'aduhu. marka waxaan rajaynaynaa in wax meerdhala ka soo bixi doono marka 5 casho dhamaado faa'iido balaaran ka heli doono. waxaa ugu dambeyntii kulankaasi furitaankiisi ka hadlay agaasimaha dawladaha hoose ee wasaaradda arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Somaliland Maxamed Cali waxaana uu ka waramay kulankani iyo ahmiyadda uu leeyahay golaha deegaanka ee degmada Boorama. wuxuu ku saabsan yahay in qof waliba xildhibaanihii ama shaqaalaha dawladda hoose uu xilkiisa gaar ahaaneed saaran u ogaado oo aan xil qura ahayn marba koofiyad u gashanayo 12 buug weey 12 buug yaa dhiganaya oo mid walba la doonayo tafaasiishiisa iyo nidaamkiisa isoo shaqeynayo in laga baaran dego hadii la ka dhigo. maaha seminar intaynu tagno soo dhigayso iska nimadna runtii laakiin waxa weeye shaqada lafteedii iyo xilkii saraay dadweynaha u hayseen iyo si cad u qaaxaysa tababar cad ka bixinaysa si loo hogaamiyana oo ka shaqeynaya tababarkani. waa Caafi TV-ga qaranka Somaliland Boorama.